kadib 34 sano markii la dilay madaxweynihii dalka Burkina Faso Thomas Sankara waxaa dalkiisa lagu eedeeyay 14 qof oo la sheegay inay ku lug lahaayeen khaarijintii ninkan oo loogu yeeri jiray halyeegii Afrika waxaana dalka Burkina Faso ka bilowday dhageysiga dacwadda 14 qof ee lagu eedeeyay dilka hogaamiye Thomas hogaamiyihii howlkarka ahaa ee u doodi jiray midnimada Afrika waxaa toogtay ciidamo 15 bishii Oktoobar 1987 isagoo 37 jir ah kadib markii dalkaasi uu ka dhacay afgambi military taa oo horseeday in ninkii saaxiibka dowla ahaa Sankara oo lagu magacaabi jiray Blaise Compaoré uu awoodda dalkaasi ula wareego Mr. Compaoré waxa uu ka mid yahay 14 qof ee lagu eedeeyay dilkaasi balse haatan waxa uu ku sugan yahay dalka dariska la ah dalkaasi ee Ivory Coast halkaas oo uu cararay markii 2014 lagu khasbay inuu iscasilo oo ay dibadbaxyo ballaaran ay ka dhaceen dalkaasi waxa uu ku celceliyay inuusan wax lug ah ku lahayn dilka Thomas waxa uu naqaadacay dhageysiga dacwadda loo haysto muddo badan ayaan sugayay dhageysiga kiiskan ayay tiri xaaskii hogaamiyihii geeriyooday oo iyadana la yiraahdo Maryam Sankara waxay intaa ku dartay waxaan doonayaa inaan ogaado runta ah yaa ka dambeeyay dilkiisa iyo sababta ay u dileen Mr. Sankara Afrika waxaa wali looga aqoonsan yahay haliyey sawiradiisa waxaa lagu dhajiyaa baabuurta ka shaqeysa guud ahaan galbeedka Afrika iyo inta badan qaaradda Sankara waxaan u aragnaa qof dalkiisa jecel dadkiisa waa uu jeclaa dalkiisana waa uu jeclaa Afrika ayuu jeclaa naftiisa ayuuna u horay dalka ayuu yiri Luke Dumba xogayaha guud ee guddiga qaabilsan xuska Sankara markii awoodda dalkaasi uu la wareegay waxa uu dalka ka bedelay magaciisii la oran jiray Abbar Volta waxa uu ku bedelay Burkina Faso oo micnaheedu uu yahay dhulka ay ku nool yihiin dadka wanaagsan Sankara waxa uu xakameeyay noloshiisa waxa uu yareeyay mushaarkiisa iyo midka shaqaalaha dawladda waxa uu sidoo kale mamnuucay in la isticmaalo baabuurta dawladda iyo diyaaradaha qaybta raaxada ah waxaana uu kaalin weyn u ka qaatay horumarinta waxbarashada dalka Burkina Faso sidoo kale waxa uu garwadeen ka ahaa olole ballaaran oo talaalka ah sidoo kale waxa uu dhulkii danta guud intiisa badan uu siiyay beeraleydii saboolka ahaa kuwa oo markii dambe ka soo saaray dalagga burka Sankara waxa uu ku baaqay in Afrika ay midowdo si loo horjoogsado waxa uu ku tilmaamay gumeysiga dadban taasi oo uu ka waday hay'adaha sida IMF iyo Bangiga Adduunka wuxuu markasta dhihi jiray madaxweyne Sankara qofkii marka qoodiya waa qofka maamula waxa uu bilaabay siyaasad ka dhan ah galaangalka dalalka shisheeye taas oo caqabad ku noqotay awoodii Faransiiska ee gobolka xaaskiisa Maryam Sankara waxay ku eedeysay Faransiiska inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay dilka Sankara caasimada dalka Burkina Faso ayaa sanadkii 2019 waxaa laga dhisay taalo lagu xusayo Thomas Sankara kadib markii cabasho laga muujiyay mid horey looga taagay halkaasi mar dambe waxaa la sheegay inay jiraan qorshayaal lagu ballaarinayo xarunta xuska Sankara isla markaana taalada kor loogu qaadayo ilaa iyo 87 mitir waxaa sidoo kale jirta xarun kale oo lagu xuso Sankara taa oo isugu jirta maktabad iyo shineemo waxaana xaruntaasi lagu wadaa in ay noqoto goob lagu gudbiyo fikradaha kacdoonka ee uu garwadeenka ka ahaa Sankara si loo gaarsiiyo jiilka mustaqbalka siyaasadihii Sankara ee garabka bidix ee mayalka adag waxaa dhaleeceeyay hay'adaha xuquuqul insaanka oo ku tilmaamay kuwa adag oo daran warbixin ay sanadkii 1986 soo saartay hay'adda Amnesty International ayaa shaaca ka qaaday eedeymo ah in siyaasiyiinta mucaaradka ah xabsiyada loo taxaabay iyagoo aan wax maxkamad ah la soo taagin isla markaana jirdil loo geystay waxay ila tahay in uusan dhageysan jirin ama uusan la hadli jirin mucaaradka aad ayuu uga gaabsaday fikradaha ku saabsan furfurnaanta siyaasadda iyo dimuqraadiyadda ayuu yiri Serge Tonfil oo ahaa wasiirkii warfaafinta xilligii dawladda Sankara waxa uu intaa ku daray wasiirku waxa uu doonayay in awoodda uu ku wareejiyo shacabka wuxuu awood siiyay shaqaalaha caadiga ah ee muruqmaalka ah kuwaasi oo ay hogaaminayeen gudiyada difaaca kacdoonka waraysi uu sanadii 2020 uu siiyay website-ka African Report madaxweynihii hore ee Burkina Faso Jean Baptiste oo ahaa ninkii xukunka ka tuuray Sankara ayaa ninkan waxa uu ku tilmaamay in madaxtinimada ay madax martay oo shaki badan uu qabay walaalkii Paul Sankara waxa uu yiri muddo badan ayaan sugaynay dhageysiga dacwadda dadka loo haysto dilkiisa 27 sano oo uu xilka hayay Blaise Compaoré markii uu xilka hayay wax rajo ah kama aanan lahayn suurtagalnimada dhageysiga dacwadda walaalkii dilkiisa xaaskii uu ka geeriyooday waxa ay sanadkii 1997 ay gudbisay dacwad ku saabsan dilka saygeeda
balse 15 sano ayay ku qaadatay in maxkamadda sare ay go'aan ka gaarto baaritaanada ku saabsan arrinkaasi. horumar aan sidaas u ballaarnayn ayaa laga gaaray arrinkan tan iyo markii xilka laga tuuray Mr. Combere. wixii intaa ka dambeeyay waxaa loo maleeyay meydkiisa ayaa la soo saaray, balse dhiigga hidisidaha ee DNA ayaa lagu xaqiijin waayay baaritaanada ku saabsan arrinkaasi. sanadkii 2016 mas'uuliyiinta dalka Burkina Faso waxay ku codsadeen dawladda Faransiiska inay soo saarto dukumeentiyo military oo ku saabsan khaarijinta Sankara. ilaa 3 marxaladood ayaa la marsiiyay dukumeentiga lagu wareejiyay dawladda Burkina Faso, halka qaybtii ugu dambeysay lagu wareejiyay bishii Abriil ee sanadkan 2021. madaxii hore ee shaqaalaha dawladda Mr. Combere oo lagu magacaabo Gilbert Daniera iyo 11 qof oo kale ayaa lagu wadaa inay ka soo hormuuqdaan maxkamad military, waxayna wajahayaan dacwad la xiriira inay weeraraan amniga dawladda iyo inay gacan ka geysteen dilka iyo inay qariyaan meydadka. dadka lagu eedeeyay dilka Sankara waxaa sidoo kale ka mid ah Diabere Jean Christopher oo ah dhakhtarkii saxiixay shahaadada muujinaysa in Sankara uu iska dhintay, waxaana loo haystaa inuu ku been sheegay arrinkaasi. dadka kale ee loo haysto dilka ee dalka ka maqan waxaa ka mid ah Haysine Konfedo nin la yiraahdo oo ah madaxii hore ee amniga dawladda Combere, waxaana dhammaan dadkaasi loo jaray warqad waaran caalami ah oo booliska caalamiga ah Interpol ay ku soo xiri karaan. waxaa sidoo kale jira cabsi ah in maxkamadaynta ay Burkina Faso u horseedi doonto xasilooni darro xilli dalkaasi uu la daalaa-dhacayo weerarada kooxaha jihaadiga ah ee sida Al-Qaacida iyo IS. Mr. Combere ayaa weli saameyn ku leh dalka. dadka falaqeeya siyaasadda dalkaasi waxay ka digayaan in military daacad u ah madaxweynihii hore ee dalka ay xiisad ka abuuri karaan haddii la maxkamadeeyo ninkani. weli waxaana taagan saansaan noocaas ah. sidoo kale madaxweyne Roch Kabore waxa uu rumaysan yahay in maxkamadaynta raggan ay horseedi doonto in xaaladda ay degto oo diiradda la saaro dib u heshiisiinta qaran. isku soo wadaduub, dilka madaxweynihii hore ee dalka Burkina Faso Thomas Sankara ayaa xilligii geeridiisa waxay Afrika uga dhigneed maalin mugdi ah, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay mid ka mid ah madaxdii ugu kacan yahansaneed ee Afrika soo maray, isagoo inta badan dalalka Afrika dhalinyarada ku nool uu u yahay role model iyo qof ay ku daydaan.